وحرنتي موضوع كسابسه دين النصيحة waxaan oran karaa waa kelmad leeto ugu weyn ee lagu cabiri karo isbeddelka qofku inta badan wuxuu ku saabsan yahay noloshiisa oo dhan noloshaada oo dhan waxa bedeli karta waa kelmad saxaabada waxa bedelay kelmadda laa ilaaha illa muhammad rasuulullah kelmaddaasi dhinac kasta oo nolosheena ka mid way galaysaa waxaan runtii aan xasuustaa nin macallina gala soo galay markuu soo galay casharkii isagoo sharxaya ayaa arday halka dama fadhiya caagad biyo ku jiraan ku soo tuuray macallinkii markuu saa ugu soo tuuray ayuu macallinkii caagadii biyaha intuu qabsaday ayuu biyaha qayb ku harsanay ayuu cabay marka macallinku samirdu wax ku qoray markaasuu macallinkii yiri ilaahay kawtharka ha ka waraabiyo sida biyaha maanta ay siisay ardaydii way yaabeen macallinka xisadii buu sii watay markuu dhameeyay ayuu yiri dhageysta arday maanta ninka caagada igu soo tuuray aniga igu muu soo tuuray waalidkii iyo aabihii buu ku soo tuuray qofka waalidkii ku tuurayna noloshiisa horumar ma sameeynayo ixtiraamna ma helayo laakiin waxaan idin sheegayaa inaan cafiyay ardaygaas ilaahayna inuu dambi dhaafaan ka rajeenayaa idinkuna arday ma sheegi kartaan ardaygaas ku yahay galaaskii baa ardaydii dareereen ardaygii keligii buu galaaska ku soo haray uu soo kacay isagoo aad u murgaysan macallinkii raali gelinay ardaygii sidii buu macallinku raali geliyay noloshii way socotay muddo ka bacdi ardaygu wuxuu noqday madax sare macallinkiisii xajku ku casumaa oo isagu lacagta ka bixiya oo geeya saaxiib lillaahina way noqdeen waxaan tilmaamayaa kelmadda nasiixada macallinku yiraahdo saamaynta ku sameyn karto qofka bini'aadamka kelmadda nasiixa culimadu yiraahdana waa la mid taasoo kaliya ma aha tujaar badan baa maanta la joogta waxa aad runtii looga waramaa nin la yiraahdo cali qaxtaani oo taajira ayagu xiraanigo dubay jooga ayaa diyaarad baan soo fuulay diyaaradda dhinacayga waxay la soo fadhiistay nin toojiro aad u weyn ana markaasaan ganacsiga bilaay ugu yiri ninkii taajirkaaba igu yiri magaca hebel baana maxaad ka shaqaysay tijaarada wuxuu ku yiri tijaarada ii macnee tijaaradu waa iib iyo qof inaad wax ka iibso isna ka iibsado ma haba yiri tijaara kelmadda la yiraahdo 5 kelmadood bay ka koobanta ta iyo jiim iyo alif iyo ra iyo ha mid kasta falsafad gaari wadataa koob wuxuu yiri taadu waxay wadataa tawfiiq min Allah ilaahay tijaarada inuu ku waafajiyaa waafajintana waxa ugu horeysa waalidkaaga inaad samafasho kelmadda labaad waxa weeyaan buu yiri waa jiim waa jur'a waa inaad dhiiranaataa inaad ganacsiga galiso meesha ku haboon oo risk taker aad noqotaa kelmadda afraad waa alifka buu yiri alifku waa udub dhaxaadka wala ugu muhiimsan waa amaana naftaada ah muxuu ahay dadka wax ka iibinayso iyo dadkaagaba ka afraad waa maxay buu yiri waa raada buu yiri raadu wuxuu waa ruwaya weeyaano waa inaad si degan go'aanka u qaadataa oo go'aanka aanad ku degdegin oo ka fiirsataa marka qaadatana ku dhaqaajisaa ka ugu dambeeyo waa maxay buu yiri waa hada waa hibatun min Allah tijaarada ilaahay baa bixiya ganacsiga nasiibood ku heli kartaa laakiin fursadka waa inaad raadsataa fursadka markaad qabatana waa inaad ka faa'iidaysataa wuxuu yiri ninkii 5 kelmadood baan qaato imika sanadkii 2014kii wuxuu noqday ninkaasi taladu qaatay ninkii ugu ibdaaca badnaa ugu creativity-ga badnaa dalka Sacuudiga xagga tijaarta marka laga hadlayo waxaan ula jeedaa kalimaadkan maanta culada ma ka maqleynaa waa kelmado nolosheena bedelay kalimaadka sideen uga faa'iideysan lahayn iyo sideen u dhageysan lahayn waa qodob aad u muhiim ah